رئيسل wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta khudbad baarlamaanka ka horjeedinayay ayaa waxa uu soo qarxiyay sir weyn oo markaasi lama filaan ku noqotay shacabka deegaanka Soomaalida. Waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya gaaskii deegaanka Soomaalida qaybtii koobaad waanu dhamaynay. Waanu soo saaray suuqa ayaan u iibgeyn doonaa bil kadib. Dhawaana xariga ayaan ka soo jari doonaa. Waan qarinay intii aan wadnay shaqada gaaska qodistiisa waayo cadow badan oo nuleenahay ayaa jira. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa hadalkani baarlamaanka ka horjeediyay. Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri xataa marka aan qiimeynta shaqada gaaska u tagayna deegaanka Soomaalida waxaanu iska dhigi jiray oo aan sheegi jiray in aan beero wax soo saarka markaasi iyo horumarka ka socda qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida aanu booqanay ama kormeer aanu ku sameeynay balse hawshu sidaasi waa ay ka duwaneyd oo waxaanu markaasi si hoose ugu kuurgalaynay ama aanu ka shaqeynay qodista shidaalka deegaanka Soomaalida ku jira. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed hadda waan soo dhamaynay qaybtii koobaad waxaanan galaynaa qaybtii labaad. Haddaba waxa ay noqotay sir weyn oo markaasi uu fashiliyay isla markaana maamulka deegaanka Soomaalida ku noqonaysa dhabarjab iyo wax aan marnaba meesha aan laga filaynin. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu sheegay in bil kadib ay iibgeyn doonaan isla markaana hadda qaybtii koobaadba ay soo gabagabeeyeen. Haddaba ra'iisul wasaaraha ayaa waxa u muuqdaa in uu fashiliyay sir badan oo maamulka deegaanka Soomaalida ay shacabka Soomaaliyeed u qarinayeen ama ay u hoosaasinayeen. waxaad aad oo la yaabanaydeen ra'iisul wasaaraha iyo booqashadiisa deegaanka uu ku soo laabtay isla markaana laba waqti oo aad iskugu dhow uu deegaanka booqasho rasmi ah ku imaaday isaga oo tagay magaalada Goday ee caasimadda labaad ee deegaanka Soomaalida. Haddaba sawiraanta halkaasi lagu soo bandhigay ayaa waxay ahayd in horumarka iyo beeraha laga abuurayo ee gobolkaasi Shabeelle uu aad u bogaadinayo ra'iisul wasaaraha dalka balse wax walba isaga ayaa maanta banaanka keenay. Haddaba maamulka deegaanka Soomaalida waxa ay shacabka ku sameeyeen khayaano qaran oo markaasi marnaba aan la iloobi doonin. sidoo kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagtar ayaa wax walba oo deegaankani ka dhaca ama boobista shidaalka iyo kheyraadka deegaanka ku jira mas'uulka ah oo ka dambeeya maadaama isagani arinta uu u hoosaasiyay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uusan u sheegin in shidaalkii la qodayo ama markaasi uu ku socdo shaqa markaasi iyo soo saarista loo iibgeynayo wadamada kale ee caalamka. waxa nasiib darro ah in aan la siinin saamigii ay ku lahaayeen dadka Soomaaliyeed xataa aan loo soo bandhigin ilaa iyo hadda lama ogo dawladda Itoobiya saamiga ay u ogoshahay deegaanka Soomaalida maadaama halka laga soo saarayo deegaankii Soomaalida uu yahay shidaalkani. haddaba arrintan si weyn ayaa loo hadal hayaa waxaana la leeyahay maamulka deegaanka Soomaalida ayaa noqday kuwa markaasi dadka u qariya isla markaana shaqadani ay noqotay mid in muddo ah soo socotay iyada oo inta badan dadku ay wada ogaayeen in la qodayo isla markaana ay shaqo hoose socoto isla markaana annaga xataa warbixino aanu ka sameynay dhawaan oo xataa muuqaalo qaarkood aan la wadaagnay baabuur ay saaran yihiin toobada markaasi shidaalka lagu qodo iyo markaasi hay'adaha shirkadaha ah ee dalka Shiinaha laga leeyahay oo si qarsoodi ah markaasi baabuurta u soo gelinaya. hataa dad markaasi ka tirsan deegaanada Dhooboweyn ee gobolka Qorraxay ayaa waxa ay sheegeen in ay arkeen baabuur markaasi qalab aysan horay u arag meeshaasi sida oo maraya. markii ay weydiiyeen dadkii iyo xabashadii baabuurtaasi wadatayna waxa ay u sheegeen sida ay noo sheegeen annagana in ay ku socdaan magaalada Shilaabo isla markaana meeshaasi ay rabaan in shaqo ay ka soo qabtaan balse taasi waxay ahayd marin habaabin iyo in markaasi aan la ogaanin oo baabuurtaasi waxa ay ku socdeen ceelasha shidaalka ee gobolka Qorraxay sida Jeexdin iyo Elale oo ah goobaha shidaalka ugu weyn hadda laga qodayo. haddaba ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta baarlamaanka dalkiisa hor imaaday ayaa si cad u qeexay
waxa uu sheegay in cadow badan ay jiraan isla markaana marnaba aysan munaasab ahayn in inta hawshani lagu guda jiro iyo qodista shidaalka deegaanka Soomaalida in la sii sheego oo laga sii hordhaco laakiin lama garanayo cadowga oo markaasi uu ka qarinayay ra'iisul wasaaraha qodista shidaalka iyo khayraadka deegaanka Soomaalida ku jira dadku waxay isweydiinayaan ma shacabkii shidaalkan iska lahaa ayaa cadow ah oo laga qarinayay mise waxa laga qarinayay dawladaha dariska sida Soomaaliya iyo Kenya oo laga cabsi qabay in ay ku soo duulaan isla markaana ay carqaladeeyaan mise jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ee ONLF ayaa laga qarinayay oo markaasi iyagana si weyn u ilaalinaya khayraadka dihin ee deegaanka Soomaalida ku jira haddaba ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa si dhiiran u soo bandhigay hadafkooda iyo waliba ujeedka ay ka leeyihiin qodista shidaalkani waxaana sheegay bil kadib in ay si toos ah ama rasmi ah ay xariga uga jari doonaan kadibna dhammaan wadamada kale ee caalamka loo iibgeyn doono ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed maanta waxyaabo badan ayuu ka hadlay balse qodobka ugu muhiimsan isla markaana si weyn u saameynaya Soomaalida ee ku sugan gobolkani Soomaali galbeed ayaa waxa uu yahay in hawshani oo la dadaya isla markaana maamulka deegaanka ay mas'uuliyadaasi qaadanayaan in uu banaanka keenay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa mas'uul ka ahaa khayraadka dihin ee deegaanka Soomaalida iyo waliba in markaasi shacabkii Soomaaliyeed oo khiyaano qaran ku sameeyay kana qariyay waxyaabaha deegaanka Soomaalida ka socday tani waxay ku tusinaysaa in markaasi ay jiraan waxyaabo badan oo deegaanka Soomaalida ka socda ama laga hawlgalay ama haddaba lagu hawlan yahay balse la qarinayo tanna ay tahay qodob ka mid ah khiyaanooyinka shacabka markaasi lagu sirayo ama markaasi macdanta iyo khayraadkooda lagu boobayo haddaba shacabka Soomaaliyeed miyay ogolaan doonaan khayraadka dihin ee deegaanka Soomaalida ee muddada dheer la ilaalinayay in sidaas loo khayaameeyo ama sidaas loo siro oo kadibna sidaas loo boobo miyay ogolaan doonaan shidaalkii deegaanka Soomaalida ku jiray iyaga oo xataa aan loo sheegin saamiga ama qaybta ay ku leeyihiin ee kaga soo hagaagaysa in goor horeba laga sii baaraandagay oo wajigii koobaad la soo gabagabeeyay taas oo ka dhigan in wadamada kale loo iibgeeyo isla markaana ay jiraan shidaal laga qaaday deegaanka Soomaalida oo goor horeba laga sii macaashay haddaba waa arrin markaasi la yaab leh isla markaana fajac ama ka ku noqotay shacabkii Soomaaliyeed sidoo kale jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya oo weligeedba soo ilaalin jirtay shidaalkani sidoo kalena dhiig badan oo ku soo daatay ayaa iyadana laga sugayaa in ay jawaab degdeg ah iyo war ay ka soo saarto qodista shidaalkan iyo waliba warkan uu soo qarxiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed haddaba daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawashada muuqaalkan haddii aad halkan la soo gaadhay ku mahadsanid muuqaalka sii share garay oo la wadaaga saaxiibadeen qaybta faaladana fikirkiina noogu reeba iyo sidaad u aragtaan arrintani soo qaraxday iyo boobka macdanta iyo shidaalka deegaanka Soomaalida nabadgelyo daawadayaal